السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن ومد الصوماليين مeel kasto ay joogaan in Allah wa inna ilayhi raaji'uun. Soomaaliinta dhimata Allah u naxariisto walaalayaal. Waxaan rabaa maanta inaan insha Allah ta'ala aan in yar aan idin kala hadlo ama madaxda qaranka aan baaq u diro saddexda mas'uul ee kor ku xusun waa saddex nin oo dambiiliyaal ah oo ummadan Soomaaliyeed ee baabaaday mar walbo in ruux intii la magacaabo yani muxuu ahaa ruuxii markii la magacaabo kadib yani arintu ay noqotay qabiil in lagu qanciyo intii qabiil la qancinayo qancin qabiil intii ay socoto Soomaaliya lagama yaabo inay nabad ka dhalato. madaxda qaranka waxaan ugu baaqayaa saddexdan mas'uul tarihii xooga dalka Soomaaliyeed is casilay 13 bishii Oktoobar bisha daan ku jirna gudaheedii taliyaha asaga ah Irfiid General Irfiid waa in si degdeg ah dawladda xabsiga u taxaabta oo la xiraa moobiladii uu isticmaali jiray teleefankiisii in la soo qaadaa shirkadihii uu teleefanka isticmaali jiray la soo birinta gareeyo yani muxuu ahaa shirkadaha sida Hormuud iyo Nation iyo Olympic shirkad walba oo odigaas teleefanka haystay generaalkaas waa in la soo birinta gareeyaa wixii contact uu sameeyay bilihii ugu dambeeyay ee la soo dhaafay sanadkan hadda aan ku jirno 3 bilood dambe ilaa iyo bishan Oktoobar laga soo bilaabo June iyo July August July August September October afartaas bilood waa in la soo birinta gareeyaa waxaan aad u jeclaan lahaa inaad barnaamijkan aad share gareysaan nin walba ku qanacsan maxaa yeelay nimankan waa niman dambiiliyaal ah qaraxii ayaan dhaweyd sidaad ogtihiin yani muxuu ahaa oo ummadda Soomaaliyeed baabaashay 14 Oktoobar uu ka dhacay maalinkii asaga xilka dhigay maalinka ku xigo ayaa musiibadan dhacday arintan wax buu ka ogaa arintan waxay ahayd arin taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee wax ka maleegay bay ahayd sababtoo wax badan wuxuu ku celceliyay dadkii bariir lagu laayay khalad baa lagu laayay dadkii bariir waa shabaabkii bariir lagu laayay ayaa mar walba hadaladiis waxay u janjeereen inuu ku xumaa shabaabkii bariir lagu laayay beerta dhaxdeedii ya walaalayaal taliyeeshaas waa in si degdeg xabsiga looga taxaabo aysan dalka ka bixin waa in teleefoonadooda la baaraa waxaad ogtihiin dhacdadii fooshu xumeedo shalay dhacday Allah u naxariistay ummadii shalay meesha ku dhamaatay hotel Naasaha Blo 18 bisha yani muxuu ahaa lagu laayay nimankii hotelkaas galay yani waxyaabaha wararkii ugu dambeeyay hadda laga soo helay waxa waaye niman la qalabeeyay wasaarad in mana laamaha amniga oo dhan bay wada ogaayeen bay noqdeen ragii waa rag kaarar wato waa rag yani muxuu ahaa kaararka dawladda ay wataan bay noqdeen kaararkii waxay wataan nisa bay wataan kaararkii CID bay wataan yaa u sameeyay dareeskii dawladdii bay wataan waa la siiyaa madaxdii baa siiso waa arin process la wada ogsoon yahay waa arintan waa arin carab ay wadato qofkaan ogeyn ha ogaado magarad qaraxyada Soomaaliya ka dhaco dhan waa qaraxyo ay carabtu ay og tahay waa Abu Dhabi baa fangarayso waxa lagu xun yahay oo laga soo horjeeda oo ay ka walwalsan yihiin oo ay diidan yihiin Turkiga talaabooyinka qiimaha badan ee ummadda Soomaaliyeed u hayo ay ka soo horjeedaan walaalayaal Turkiga ayaa laga soo horjeedaa Turkiga ayay arki laayeen Turkiga ayay ka xun yihiin Turkiga ayay ka maseersan yihiin magarad saldhiga Turkiga ciidamada Soomaaliya lagu tababaro ayaa loo waday qaraxii weynaa ayaa dawlad meesha ka dhacay musiibadii ummadda Soomaaliyeed meesha ku habsatay ya nin walba markuu dambiili yahay waxa la leeyahay orod iska bax ya dambigii marka waxa waay hadiiba nin walba sidaan loo fasaxo xil baan ka qaadnay xilkii baa laga qaaday war xil ka qaadid ummadda Soomaaliyeed kuma qanci karto maanta madaxda qaranka waxaan leeyahay war dad niman xil aad ka qaadeen lagu qanci karee war nimanka xabsiga hala dhigo taliyeesha kor ku xusan General Saacid taliyaha booliiska Soomaaliyeed taliyihii nabad sugidda Sambalolshe taliyihii hore oo markii xoogga dalka saddexdan nin waa in xabsiga loo taxaabaa oo la xiraa magarad war ummadan way baabaaday war dalkan waa la qaatay war dalkan dadkiisi waa dhamaaday war dalkan dad kama noolo war dalkan sidan si ma aha war sidan si ma aha war ummadda maxaa munaafiq ku wada dhigay ya
nabiga calayhi salaatu wasalaam qof mu'mina 3 jeer god laguma qaniino war maxaa loo yani muxuu ahaa maxaa loogu baraarugi laayahay war maxaa loo yani muxuu ahaa arrimahan foosh xunoo socdo maalin walba in yani muxuu ahaa weerar noocan uu dhaco isla nooc ilay maalin walba lagu soo celcelsho war maxaa dhacay oo maxaa qaldan walaalayaal biliis madaxda qaranka waxaan ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed haddii raggaas aan la soo xirin nimankaas madaxda haddaan xabsiga la soo dhigin Soomaali ma qanacsano idinkuma qanacsano madaxda qaranka ma garto ummadii Soomaaliyeed idin dooratay idinkuma qanacsano runtii inaan sheegno Ilaahay baan ugu dhawaanayna ma garto maxaa yeelay raggaas ayaga ah waa inaan yani muxuu ahaa sida ugu dhaqsiyaha badan ummaddu waxay ku qanci kartaa nimankaas moobiladoodii iyo kombiyuutaradoodii iyo teleefoonadoodii xawaaladaha lacagaha laga qaato oo shirkadaha lacagaha lagu soo diro in si degdeg ah loo dabagalo income-iskooda iyo bangiyadooda in la ogaado loo baahan yahay nimankaas ayaga ah ma garad raggaas ayaga waa in la soo xiraa raggaas waa in xabsi loo taxaabaa weliba waxaan ku dari lahaa in ninkii wasiirka gaashaandhigga ah oo walaalkay ah in adeerkay ah Cabdirashiid Cabdirashiid waa in teleefonkiisi haddii uu mutaysto waa in la xiraa ma garad waa in la xiraa wasiir nafsadiisa lagu soo balaawo la xiro ya maxaa yeelay walaalyaal yani muxuu ahaa ummadan Soomaaliyeed way daashay dalkan wuxuu u daalay dalkan maalin walbo yani muxuu ahaa dhibaatadan way soo noqnoqotay dhibaatadan waxay noqotay midaan dhamaanin maalin walba taasiye ayaa noo taalo maalin walbo yani muxuu ahaa shabaab baan laayay saan baan la yeelay saan baa dhacday kaasa dhacay sidaan bay noqotay warheede war maalin walba argagax iyo dhibaato kama bixi karno walaalayaal arrintan waa in isku si loogu yani hadalkeedii wax ma tar biliis hadal waa lagu daalay ma garad wixii culimada sheegay waa la sheegay war nimankan haddii ciidanka Soomaaliyeed ay hubaan in nimankan qofkii dilo janno inuu galay ay og yihiin sababtay u dili laayin maxay tahay war shabaab ninkii dilo waa ahlu janno ninkay dilaan waa ahlu janno ma garad shabaab culimadii iyo ummadii Soomaaliyeed maanta ay ogaadeen inay khawaarij yihiin oo ahlu naar ay yihiin maanta adduunka maanta yani ummadii Soomaaliyeed maanta ay ogaatay laakiin aniga waxaan ogaaday 26 bishii July 2008 ayaan ogaaday maalinkii aanoo waxba galabsanin oo sirkaal UN ah oo yani muslim ah oo weysa qabo oo 2 rakacadood aan tukaday kadib 9 xabadood ay ugu dhufteen oo aan dhimin waayo idili waayeen Allah subhanahu wa ta'ala baa nafteeda hayay ya Allah nafteeda hayay walaalayaal al-shabaab adowga ummadda Soomaaliyeed oo inay khawaarij yihiin oo diin laawiyeel ay yihiin aniga maalinkaas 2008 kii baan xaqiiqsaday maalinkaas ayaan ogaaday haddii maanta idinkaad ogaateen horeyna waan uga hadlay waan sheegay yaa muddo 7 sano ka hor ayaan ka hadlay 7 sano ka hor baan miidiyahan kala hadlay iyo bishii Mars 2010 kii baan ka hadlay arrintan dhacdan foosh xun walaalayaal waxaan idin leeyahay war Soomaali sidan si ma ahan war sidan xal ma ahan war ummadan waxay u baahan tahay dhiigyoojin bay u baahan tahay ummadan waxay u baahan tahay badbaado degdeg bay u baahan tahay ummadan waxay u baahan tahay in talaabooyinkii horey dhici jireen yani muxuu ahaa in laga waantoobo ayaa loo baahan yahay walaalayaal sidan nolol ma ahan sidan waxa waaye waa si xayaatu kelib ah sidan si lagu jiri kara ma aha dawladda Soomaaliyeed maalin walba waxaan leeyahay dawladdeena waxaan ku ambaaraynaa dawladda Soomaaliyeed maalin walba dagaal bay ilaaminaysa dagaal bay ilaaminaysa dagaalkay ilaamasana ma qaadayso waa arintaas naftirkeeda waa dhabar jab weyn hala shargareeyo walaalayaal hala shargareeyo bulshada Soomaaliyeed bal hala isgaarsiiyo please shargareey barnaamijku waa barnaamij muhiim ah waan soo koobay doonaa dawladda Soomaaliyeed maalin walba madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed intuu la bisto tuuto gashto iyo ra'iisul wasaarihii dagaal baan qaadaynaa war arrintan arrin military ma aha arrintan arrin military ma aha taagtiig ma aha taagtikada qofka bini aadamka in la ogaado looma baahno madaxda qaranka nimankan ayaga xabadii kali inay ka wareelaan ayaa loo baahan yahay in meelaha ay ku soo duulaan ayada loo dultaagahay kali xabad ay ku bilaabato ayaa loo baahan yahay war wax walba wad sheegaysaan ma waxaad yani waxayba noqonaysaa war tabaabaysta si diyaar garoow dagaal baa idin ku soo qaadayna soo ma noqonayso ilaahay baa idin ku dhaarshay ya
madaxda qaranka waxaan leeyahay dagaalkan oo yani muxuu ahaa oo kaliya Facebook iyo meelaha lagu ciilaamanayna laga joojiyo hadii aan talaabo la qaadi karin war nimanka yani muxuu shacabka Soomaaliyeed hala baraarujiyo la iska celiyo nimanka yani muxuu shacab ahaan bal loola dagaalo hadaan military ahaan loola dagaalami karin laakiin hadii arrintu military ahaan in loola dagaalamo ay tahay war waxa la sheegay hala joojiyo oo war nimanka xabadda ka waxlaan nimanka ayagoo la leenay kaliya inay arkaan baa loo baahan yahay yaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay taliyeyaashaas hadaan la soo xirin iyo inta taliyaal hore waxaan u sheegay wasiirada hore baan uga hadlay 2 sano ka hor 1 sano ka hor aan ka hadlay in wasiiradii xilkooda waayay dalka laga masaafuriyo in yani muxuu ahaa madaxweyne nimankii muxuu ahaa taliyeyaashii ciidamada ahaa oo xilka laga qaaday in dalka laga masaafuriyo intii nimankaas ay dalku sugayn dalka inuu deg laga yaabo magarad war wasaaradaha amniga iyo yani muxuu ahaa arimaha amniga quseeyo war biliis qabaa'ilada ku qancinaysan madaxda qaranka waxaan leeyahay war nin walbo arintan ka bixi karo ha loo dhiibo oo qabaa'ilada ku qancinaysan joojiye war amniga ciyaar ma galo war amniga yani muxuu ahaa waxaan leeyahay mid qabiil qaadan kara ma ahan ee maanteeto waxay taagan tahay war yaa ka bixi kare taagan tahay war arrinkan yaa ka bixi kara ay taagan tahay horey baan u hadalnay maalin walba aan hadalna hadalkeenina wax ka soo qaad mi yeelanay war biliis war darad wixii dhacay waad ogeedeen 3 maalmood ba la baroor diigay 2 week ama 1 week amal ba la qayqayliyay wixii waa la hilmaamay waxa ka dambeysay 28 October war 14 October ba musiibo dhacday 28 ba ka dambeysay maanta waa 30 berina way dhacaysaa hadan inay dhacdo laga yaabo war walaalayaalow war biliis sidan si ma ahan war shacabkan Soomaaliyeed sidan si ma ahan war madaxda qaranka sidan si ma ahan war adduunyada yani wayna la yaaban tahay war wax arab way noo soo jeesatay arab waxay rabtaa dalkan inay burburiso oo ay qaadato waxay noo adeegsatay dawladaha shisheeyaha sida Ethiopia baa la adeegsaday inta kulli waxay duulaan ku yihiin Abu Dhabi waxay si toos ay u tiri Soomaaliya Turki joogo ma degi doonto go'aan bay ku gaartay Turkiga oo joogo Soomaaliya qarax inuu ka istaago laga miyaabay tiri walaalayaal arintan waxa loo baahan yahay war madaxda qarankow isxisaabiya war nimanka saraakiisha waa gadan yihiin madaxda nimankan ciidamada haysto waa gadan yihiin war wasiiro gadan baa jiro xildhibaano gadan baa jiro war kulli Abu Dhabi baa iibsatay ma garat Abu Dhabi baa iibsatay hadii dekadihii Boosaaso iyo Berbere ay qaateen maxaa u dhiman bal wax u dhiman sheeg adiga wax u dhiman malaha ma garat wax u dhiman abadan haba yaraata ma jiro wax u dhiman malahan hadii Berbere laga qaatay hadii yani muxuu ahaa maanta waxaan maqlay oo wararkii ugu dambeeyay aan helo ayaa wuxuu sheegaya in yani hub yani muxuu ahaa ay soo dejisay hub inay soo dejisay Abu Dhabi ma garat waxay hub ku soo dejiyeen meesha la yiraahdo Berbere hub ay ka soo dejiyeen waxay hub ku soo dejiyeen Boosaaso ka soo dejiyeen war dalka ma Abu Dhabi baa la mas dawlad baa iskale soo anaga xurmaniin goorma arabna la wareegtay goormayna qabsatay yaa walaal waxaan idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay badbaado waxay u baahan tahay dhiigjoojin bay u baahan tahay dhiigjoojin bay u baahan tahay nimankan saraakiisha waa in si degdeg loo baro la xabsiga loo taxaaba nimankan saraakiisha oo xilka laga qaaday oo xilkooda waay waliba waxa kala jiro wasiiradii hore oo wadanka xukuumadii hore oo hadda magaalada Muqdisho ku sugan mar labaad mar saddexaad waan ku celinay dalka laga saaro nimankaas ayaga nimankaas si degdeg ah dalka loogu saaro dalka laga saaro nimankaas ayaga waxa baaris ba socoto insha Allah taala kama hordhici doono dilka yani muxuu ahaa hotelkan Nasablo 2 weerarkii yani muxuu ahaa lagu qaaday yani waxa ifafaalooyinka fara badan ba soo baxayo oo yani muxuu ahaa niman maamul goboleedyada niman yani muxuu ahaa ku jiro madaxda maamul goboleedyada nin kamid ah inuu ka dambeeyay oo arintaas ayada ah ayaa insha Allah taala yani muxuu ahaa ayaa socoto arrimo fara badan baan wadnaa in loo dan lahaa Madaxweyne Maxamed in loo dan lahaa ayaa meesha ayada ka soo bixaysa duu Ilaahay idmo oo si lagu khaariji loona fududeeyay raggaas ayaga in transportation laga soo bixiyay lagana soo diray meelan ognahay laakiin waan sheegin doonaa duu Ilaahay idmo kama hordhici doona duu Ilaahay idmo raggaas ayaga ah qaar nool baa la qabtay insha Allah taala waxaan aad mar labaad mar saddexaad ku celinaya in saddexdan taliye Sambalolshe iyo Saacid iyo Irfiid in xabsiga dawladda si degdeg ay u taxaabto telefoonadana laga soo qaato wax allaale wixii ay ku hadleen la soo birinta gareeyo ayaan suweyn haduu Ilaahay idmo
aad baad u mahadsantihiin walaalayaal hala sheer gareeyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.